halkan waa tiristi codka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali la socodsiinaya Iiraan ayaa fadlan la daadinaya waxaan laga dhigeysanaysaa moojada dheerkeedu uu yahay 855 AM-ka sidoo kale shabakada internetka 3cr.org.au oo aad ka dhigeysan kartaa ilaa isbuuc waxa iyadana bariyahan aan bilownay inaanu Shabeelle ayaan asagana ku darnaa Liibano soo dhawow waa ku mahadsantahay Xamdi oo ku dhawahay idaacadda Liibano waxaan iyadana soo dhaweynaynaa dadka naga daawan doona webi Shabeelle mataqaanaa yaan iyagana soo dhaweynaynaa wixii ay marka fikradooda commentiga ku saamaxay maxaa Liibano commenti share like waxaan ku leeyahay subscribe waxaan ku leeyahay waxaasoo dhan wax alla wixii fiicnaayoo dhan wax walba hadda ugu dambeeyay lagu haynayo Liibano haddaan ku bilowno waddanka gudihiisa waxaa runtii loo diyaar garoobayaa doorashadii gobolka Victoria oo dhici doonta bisha 11 oo hadda waxaan ku jirnaa bishii 6 oo waxay kadib bilaaban doontaa marka 6 bilood miya ama 4 bilood 4 bilood way maadaama 12 inay gaadhayna xataa 4 bilood baad moodaa inay dhexdeeda waxaan adoo dhexdeeda ah marka waxaa socda campaign-kiiba yaa xooga u socda Liibano waxaa marka ku samaynaysa isbeddel weyn oo ama noqon doonta waxay Soomaalidu dhihi jirtay ilka doofin la sahaysay show ninku waxaan malanayaa ilka doofaar ama ilka doofin midka dadna baalka nin waqti Liibano doofaar bay dhahaan dadna doofay bay dhahaan doofaar iyo doofay labada waa baalkan big la dhaho laakiin inkastoo san ahayn exactly kan qoran hadda la maad xanaaneeyay ee buuran ee cad ee xaydha meeran in ilkana lahayn Kenny doonfaar farow aan dhihi jirnay doonfaar farow Kenny inagu xageeni ahaa waddankeeni anigu waan arki jiray meel soo orda waxa uu ilka dhaadheero inta leh weeye geesa leh markaas waa kan ninku leeyahay ilka doofaar la sahaysay soo ninkan oo madaxa taagay saas u dhahay moogta buu arkay ilka weyn markaas uu soo miyo cararay waxa markaas wixii wale ilka doofaar la sahaysay hadda marka arrinta waxay tahay Liibano halka mari doonta qoladii la dhihi jiray One Nation ama haweeneyda la yiraahdo Pauline Hanson oo waddankan soo bilowday siyaasaddiisa 20 sano ka hor oo xataa mar xabis gashay oo marna keliyeed ahayd wardo oo dadku neceb yihiin oo fish and chips lagu sheego oo arrimo mar hore aan ka hadalnay oo please explain soo martay oo meelo badan soo martay soddon sano miyaan 96 meelahaas ama marka 96 laga joogo hadda soddon miya soddon bay sigtaa hadda bismillah marka islaantiina hadda waxay wada carcara غير عادي waxaan ognahay ninkii mar ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Australia mar ahaa Annie Jones oo ninka soo iska waaran oo aan aad loo meel badan ka dhacay u yahay haddana ninkii baa ururkeeda ku tarmaday marka bariyahan spotlight waxa ay ururkeeda haystaa warar aftida hadda u dambeysay soo baxaysa waxay sheegaysaa oo ay hadii doorasho hadda la qabto federaalka ah waxaa lagu qiyaasay ururkaasi inuu ilaa 50 kursi meesha hadda maanta hal kursi oo berigi dhawatay ku guuleysan election shaqada ama ka fadhiisto ama waxa u dhaco oo loo dib loogu tartamo ayaa kursigii ugu horeeyay waxa la dhaho lower house oo guriga dowladda laga dhiso guriga ay hadda hal kiri ka haystaan oo xataa kana tigis dib ay kaga guuleysteen ayaa waxa la leeyahay inayba ilaa 50 kursi ay ku guuleysan ay ku guuleystaan taasi meesha hadda mucaaradku uu yahay dhowr iyo 20 mucaaradku uu ka haysto dhowr iyo 20 marka maxaa leeyahay saa arrinta u dhacdo iyo waxa u dhow inay iyagu mucaarad noqoto loogama shaka qaba hadda looma malaynayo inay dowladda ku guuleysanayaan laakiinse inayba mucaarad noqoto ururkii liberaalka iyo ka baxaan kala barkii fadhigaas waxa sheegayso waa 75 u malaynaya kala barku waa 100 iyo maxaa weeye 50 miya kuraasta dhan waa 150 marka 50 haday ku guuleystaan dad miinay 3 meelood meel oo kale ay ku guuleysteen marka aqlabiyad buuxda ma haystaan sida la sheegayo laakiin waxay si fiican ay ka badinayaan mucaaradka damaantii
سيدي سبا ما waa aftiisa soo baxday waa haddii wax kasta waa isbedeli karaa marka arrintaana codka ugu badan wuxuu ka go'ayaa waa kala weyn liberaalka nationalka qolada dhexe coalitionka iyo dadka codka ka go'aya horta arrintaas socota laba mid bay noqon maalinkii la gaaro sanadka 2028 kan dowladda federaalka ku aadan tahay ima inuu wax ka rumoobo oo Boris Johnson ay noqoto quwadda labaad ee waddanka Australia waxay soo gurguurtaba ama inay noqoto ilka doofaar la fahansan waxaas oo dhanba uu ku noqdo maaragtay hal bacaad lagu dhisay uu noqdo marka laakiinse time will tell bay dhahan gaaladu time will tell waqtiga asaga markii la gaaro ayaa la ogaani inay Boris Johnson iyo One Nation ay kaga dhalay horta miyaan ku celinaa horta bilis dad badan inay saa u garan baa laga yaabaa Boris Johnson waxay ahayd naagtan horta kow dad badan waxaan rabaa inaan dib u celiyo Boris Johnson waxay siyaasadda ku soo gashay marka hore iyadoo liberal John Howard ninka la dhihi jiray oo ahaa ra'iisul wasaarayaasha ugu badan ee ku soo noqday uu yahay Australia uu nool yahay ayaa 1996 kala soo doortay ayaa ururkooda ayay ku jirtay inay u soo istaagto waxay ahayd endorse ururadu ashkaas bay endorse gareeyeen ama ay taageeraan inuu naga tirsan yahay markii campaign-ku uu bilaabanayay markay campaign-kii bilowday iyadoo liberal ay campaign-ka ku bilowday ayaa marka waxyaalaha aan loo joogin oo liberalku si kasta ay right u yihiin ayna u adkaysan karin balin bay ku dhaqaaqday waxay ka mid tahay dalka waa laga qabsanayaa eeshiyaanka la qabsanayaa dadkii Australiyaanka fitir bay ku sugan yihiin iyo waxa loo joogo bay la kacday markaasuu marka liberalkii dhahanana arrinta waxoogu lilibad ku yaraado waad yara badbadinaysaa yaa waxaa lagu yidhi arrintaasi waad yara ku yara dardaraysaa yaa la yidhi waa ku dardaraysaa baa wax caadi ma aho waa la diiday markaas waxaa lagu sameeyey waxa la dhaho disendorsement macnaha waxaa uu yahay nagama tirsano islaantaasi nagama tirsano kursiga asaga ahee marka hore aan ku taageernay hadday ku guulaysato annaga nagama tirsanay ogaada arrintii bay marka ku guulaysatay iyadoo sidaa la yidhi haddana kursigeeda ku guulaysatay markaasi waxay soo ogtaagtay keligeed waxyaalihii markii waxa baarlamaanka marka ay ka hadlaysay u horreysay waxa la dhahaa maiden speak marka ruux marka koowaad ee baarlamaanka loo doorto ayuu hadalkiisii maiden maxaa u malay inuu yahay ugubka wuxuu ku ugub baxay oo kale waxaan casoo dhigan qorashadii u horreysay iyo ruux marka uu sheegaa oo markaas uu ruuxna mabda'iisu inta badan way marqaansan yihiin waa dad yar weedadiisu yar tahay siyaasadda ku cusub markaas marka la dhahaa bal inuu sheego si uu hadhow u dhaho wixii bal maxaa iska bedelay u dhaho waxyaalihii marka maiden siinka ay ku hadashay baa liibaana waxaa ka mid ahaa inay tiri we will be swamped by the Asians waxaan harqin doona oo daad ah noo qaadi doona Asiaanka bay iyo dadkan dibadda ka imaanaya markaas hal mar aan xusuustaa miiriyo aad wax awal hor Australia xataa ruuxii saasoo kale u yara hadla si toos ah ka soo guulaysan jiray ruux marka baarlamaanka Australia ku jira oo dhahaya saa u arrinta u qayaxaya oo haddana dalalkan agteena ee dariska noo aadka nooga fara badan ee Southeast Asia haddana farta ku fiiqaya waxay noqotay runtii waxay ku riday argagax waxay noqotay la yaab leh marka waan xusuustaa markii la wareystay in badan la wareystay maalinka ugu dambeysay qolada programmada Australia aadka loo yaqaan 60 minute on online uu soo dayn jiray yaa gabadh Lee Hayes la dhaho hadda way ritaar golada u maanaysaa yaa maalinka ugu dambeysay bal soo tiri Boris Johnson waxaan rabaa inuu ku wareysto waayay bay way aqbashay wariyaasha mugta khibradda lahna waxay mar kastaba raadiyaan wax la dhaho catch ruuxa ay ku kadiyaan weliba oo habboonti ah oo ruuxa case ku qabta hadduu ruuxu dadka khibradda leh way iska gartaan xataa iyagoo hadalkiisa u rabeen u dhahaya ayay marka u horeysa fahmayaan in la doonayo hadal in laga qabto marka way ka xumaynayaanoo hadalkii oo isoo meermeeraysan markaasay mar dambe dhahayaan wixii xataa ay rabeen inay dhahaan ayadase waxay ku noqotay cadow markaasi waxay noqotay wax marka ruux kasta uu arkay hal marba waxay ku tiri berigaana aad arrinta lama sheegin Boris Johnson are you homophobic hadalkii ugu horreysay waxa ugu bilowday markay doorashadii markuu hadalkii bilowday ayaa waxay ku tiri are you homophobic waxaa la dadka ma garan guryoodka oo kale ereyga ugu habboon ee Soomaaliga dhihi kara waxaa weeye dadba waxay dhahayaan cunsuri ma oo waa dad guryood macnaha waxaa weeye ruuxa ma garan gurigiisa iyo meesha uu yaqaano iyo dadka uu yaqaano mooyeene waxa kale oo dhan ka cabsanaya dadkaasaa dhaha homophobic baa lahaa macnaha ruuxii hadduu gurigiisa joogo banaanka hadduu baxo cabsani oo wax alla meesha inuu dib u keenayo moodi
hadduu tuulo degan yahay tuulada waxay ka baxsan xumoodi balaaye inay jirto oo la isku hayo marka ruuxaasoo kala hadlaya homophobic markaas waxay tiri ayuu homophobic bay ku tiri waxaana show bolnaas weligeed meel maqal markaas iyadana si la kaclayn oo iska lama filaan ah iyo waxay u tiri please explain si dhacdo beri dhanba marka Australia oo dhan waxay ahayd ruux kasta markii lagu dhaho please explain qosol la dhex jiray oo lagu bartay haa saxan baa loo gaaday iyadii baa lagu bartay maxayna asalka arrinta ku soo ururaysaa ruux aad siyaasadda uga hadlay oo soo arkay inuu siyaasi yahay oo siyaasadda dibadda ka hadlayo oo qarankii baan badbaadin leh haddana aan garanaynin wax soo symbol oo ah homophobic waxa uu yahay aan garanaynin oo shock ka qaaday ya horta ayay ku watay hees baa laga sameeyay nin Australia ku jooga oo Queensland ayuu ka sameeyay hees wana ma lahayd waxa asbab laga sameeyay muddo dheer socotay aakhirkii dacwad la kortay waxay tiri sharafteeda lagu dhaawacay heesta ayaa la dhageysan jiray waa laga ogolaaday waa laga joojiyay heesta waa la duugay heesta lagu duugay islaantii saas ahayd baa Libaanow waxay soo qabtay markii u dambeysay xabis baa uga dambeeyay arrinta xabis bay gashay mugti dad badan ma ogo xabis bay gashay muddo dhowr bilood ama inuu haabay ku jirtay inay waxaana lagu haystay wuxuu ahaa inay lacagtii Australia ruux markuu doorasho ku guuleysto oo sorry markuu MB yahay ama ha noqdo dowladda ama mucaaradka ha noqdo ama independent ha noqdo lacag waxaa jirta la siiyo sida shaqaalaha oo kale inta badan lacagta ayaga maamula shaqaale inta shaqaalaha ramaam hadda shaqaale ku shaqaysan shaqaale sida shaqaale lacaga koreeyada waxaa jirta loogu talagalay in xafiiska ay ku maamulaan oo badna dad shaqaalaha oo kale lacagtooda waxa bixinaysa dowladda iyadoo ruux shaqo ku maro saw uu shaqaalaysan mooyaan ruux la shaqaaleeyo wali mooyaan mushaarka waxa bixinay wasaaradda finance-ga baa bixinaysa oo wax awood badan kuma ay laakiin si waxay awood ku leeyihiin lacagaha kale loogu talagalay in hotel lagu guriga marta xafiiska oo kale transportka oo kale waxyaalo lagu soo qabto waraaqaha lagu soo qabto waxyaalo badan oo jirta ay xafiiska adminkiisa iyo lacaga marka arrimihii ayaa waxa lagu soo eedeeyay in istiqraar loo isticmaashay arrintii lagu soo eedeeyay waa lagu helay xabis gashay intii wax ku hada ma xusuusto laakiin iyadoo xabiskii dhamaysan weyn ayaa waxay ka qabatay abiilka marka dambe ku guuleysatay sidii bay ku soo baxday mudday marka iska yar aamusnayd haddana way soo noqotay hadda waxay ku soo noqday marka waxay kaga jirtaa baarlamaanka waxa la dhaho upper house meesha waxa waa meesha sanadka la dhaho meel area kooban ma matasho laakiinse gobolkaas unbay oo meesha dadkeeda ay joogaan oo dhan yay matashaa xamdi marka aad ku watay maadaama ay heshay macnaha taageero saas u badan maxay ka dhigan tahay maxay dhigan tahay horta isbedel saan sheegay way aakhirkii doorashada soo socota waxa already lagu qiyaasayaa doorashada waxa ugu horeysa in gobol ahaan markii loo fiiriyo horta midii Soomaali waxa ka horeysay inta hada caraheedu soo kacay waxa ka horeysay South Australia waxna South Australia ku simiye waxbay ku guuleysan wax badan ku guuleysanay midda ku xigay ee lagu test gareyn karo aysan noqon gobolka Victoria laakiin xagga federaalka oo caraha ugu weyn ay ku wado waxa la ogaan doonaa 2028ka markay doorashada federaalka dhacdo ayay ama noqon doontaa ilka doofaar la saxisay oo wixii iyo kontonki kursi iyo wixii hal bacaad lagu leeyahay u noqon ama haddii kale ay noqonaysaa quwad saddexaad haddayna noqoninba quwadda labaad waddanka siyaasadda Australia marka runtii walaac badan baa laga muujinayaa dadku ay ka muujinayaan inkasta oo aan anigu aan aad uga sii walaac uga qabin sheegi sababta waxa weeye Australia nidaamkeedu runtii waa ka duwan yahay khaasan midka Mareykanka oo kale waa parliamentary system waana party system marka taa darteed waxa uma suurtagelinaysa ruuxu cod kasta oo uu haysto iyo si kasta oo taageero u haysto inuu amar taaglayo ku adag sababtoo siyaasaddiisu oo dhan waxay ku salaysan tahay MB-yada baarlamaanka fadhiya marka kuwaana mid kastana markuu ururka dantiisa ha fiiriyo doorashada guud ha fiiriyo laakiin ruux walba haddana wuxuu talada ku hayaa dadka meeshii isagu laga soo dooranayay jooga si ay u arkaan dantooda waxay u dooranayaan inay maciishada loo raqiisiyo inay shaqo ay helaan inay waxbarasho helaan in aynan cabsanin inay nabadgelyadu waxa ay xooga saarayaan haddaad meesha marka ku mashquulto inaad tiraahdo adduunkan kala gadin iyo waxbaan samayn iyo Australia iyo aad laakiin sida qutul-yoomkoodii iyo maciishadoodii maalinka iyo cabsidoodii iyo waxbarashadoodii iyo ciyaalkoodii aad waxba ka qabanaynin MB-goodii baa la waci oo leeyahay anaga waxaad sheegaysay adduun baan kala hagaajinaynaa ma garanayne
what's going on baa lagu dhihi taasa marka xakameynaysa waxaa kaloo iyadana xakameyn baartiga asagana urur buu ruuxi ka tirsan ururkaasna xubnay leeyihiin xubnahaasna waxaa ugu xoog badan kuwa baarlamaanka ku jira kuwa kaloo baarlamaanka ku jira taasoo dadba marka waxay keenaysaa in aynan sida ay rabto sida hadda maraykanka oo kale Donald Trump intii la doortay wuxuu doonay qastilabi karo 4 sano soo socota ma aho xakameyn xoog badan oo aynan meel ka mari karin ya dul saarnaan marka sababteed Donald Hanson awoodda ma ay laho karti iyo maskax ay ku maamusho oo xubnaha baarlamaanka ee fara badan ee hadda baarlamaanka soo galay iyo xubnaha guud ee ururka iyo shacabka guud iyo ma awood marka si badan ba marka ayuu ugu dhici doonaa qasiya lab waa laga yaabaa inay doorashada hadda u dhamayso marka kuraasta hadday ku guulaysato ilaa ta kale ee soo socota laga gaadhayo in qas badan ka yimaado aakhirkiisa ugu soconayso iyo isku duubo inay isbedel weyn ku samayso saan sheegnay hadda already waxaa la leeyahay ururka xulafada ama liberaalka oo weligii muddo dheer ahaa ama dowladda dalka maamulahaya ama mucaaradka ahaa inayba hadda mucaaradnimadii kala baxaan oo Donald Hanson kala wareegto marka maadaama xisbi hadda uu isku bedelayo xisbiga labaad talada macnaha kusoo biiri doona ma laga yaabaa Pauline Hanson kaliya inaan arkayno mooyaane dad kale awoodo kale ka sarreeyo oo ayaga garab fadhiyo oo maamulka xoogo waa boonti fiican wey waa boonti aad fiican waxaa saan hadday maadaama uu iri waa party system Pauline Hanson hadda iyadu waxay iska dhigaysaa mar bay moogtay Pauline Hanson is one nation hadda waxaa la dhahaa one nation basiirka magaciisaasay ka dhigtay xisbigii oris markay bilowday wuxuu ahaa Pauline Hanson is one nation kii Pauline Hanson iyadu ay leedahay xaqiiqadaas waxay tahay markuu meeshu noqdo party uu noqdo xubnuu yahay xubnahaas waxay dooran karaan ruux alla ruuxi ay rabaan aqlabiyad haysta waxaaba laga yaabaa hadda markay saa doorashada u dhacdo inta aan la gaarin hadday xubnihiis u yimaadaan inay dhahaan Pauline Hanson leader noo noqon mayso ruuxa leader noo noqonaysa waxaa laga yaabaa oo dad badan mar qiyaasaba ninka hadda aan ku leeyahay mar ahaan jiray nationalka ka tirsanaa mar hogaaminayay nationalka mar ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka noqday Barnaby Joyce inuuba ka qaadaba marka waxay ku xirnaanaysaa in xubnaha ururku sida ay u arkaan dantooda iyo sida ay u sii jiri karaan aad iyo aad baynu ugu dhowdahay in ay Pauline Hanson transitionka labaad ee one nation uu noqdo iyadoo inayna hogaaminay kuwa kale ay kala wareegaan marka tiina dad baa marka waxay leeyihiin adduunyada dadku wixii ay ka rabeen liibaan waxaa la isku baahan isweydiiyo maxay dadku ka rabaan waxay ku arkaan inay iska tago iska daacada maskax badan bay haysaa iyo caqli badan bay haysaa iyo hal badan bay keeni ma laguma arko waxaase lagu arkaa inay tahay iska daacada dadka maarta caadiga ah iska masaakiinta ah mataqaana dantooda iska eryada markii wax la weydiiyo la yaaban war is dheer dhaha haddii la dhaho dad iyo muxuu yahay aan kala sheegin haddii ruux nacdiyin waan nacbahay haddii ruux jecel yihiin waan jecel aan saabaynaynin oon diblomaatiga iyo isticmaalaynin dadkaa way hor dadka ay kasbanayso marka dad waxay leeyihiin dawaa haddii Pauline Hanson meesha ka baxo mid caqli badan oo smart oo artikelada uu yimaado dadkii waxay dhahaan kuwii hore buu la mid yahay ra'iisul wasaaraha iyo ninkan mucaaradka iyo qolihii weliga soo maamuli jiray buu la mid yahay dhahaan baa laga yaabaa oo markaa dadka haddana dib loogaga noqdo laakiin waa suurtagal hadduu ruux caqli badan maskax leh oo yidhaahda maya kuwaas معناها سجرين ودك جودين هي استراليا دي من يا اللي هي اللي انا هم ضد الامان اصلا نوع من يعني badan oo waxaa jira waan isdiri aan daacadiis haya anaga kan ahayn dad sabay dad soo hormar keenay loogu yimid lagu dayanhayo haddana si aniga marka madaxdu ama way baraarujin oo caqli waxaa ma soconayso markii
Australia dadka dantaanka Australia marka waxay badan iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo adduunka aan faranay ay haysanin inta waxaa keenay in afar gad adduunka laga yimid oo markaan badnaa dhaqaalihii horumarka karismaynayna yaa sababtay hadduu ruuxsa u sheegay dadka uu kan yellow waayo oo sida Donald Trump oo mag great again وانا شركات ugu meel kasta dad waaweyn Allah waxay iska hayaan maala waaweyn dhaqaalaha bariga inuu ku gaadhay inaadan maqal marka arrintaas aad la yaab u ahayd meel yar oo Victoria ah oo dad badan la ogyahay ay jilan badan ay jirtay ninka wixii la soo sheegay oo aakhirka uu ku jiray tender oo guri oo meel baadiya صح dad badan baa qarinayay marka dad waa loo diiday waxa yiri ninka ku leh waxa weeye macnaha sharciga hoos صح دميري لوديس يروح قرن ما دام دور معناها صح فريمها اي بقى انتلاقات بدن سوقي هي لما هرمعي بوليس waxaan soo cadeynayna dadka صح iyo wixii macnaha waajib galeen marka maxkamad baa ayaga loo yimaado
بس مدة دير ومطاع ومدة la garan lahaa mar uu dhintay oo sidiisa isaga dhintay aakhirkiis waa til beer ah oo baadiyaha ah asagoo kontayno ku dhex jiray ayaa laga helay markaasaa dhinaalkii lagu dilay booliiska isagoo xataa ka warramaya qaabkii lagu dilay markii la arkay baa waxaa dhacay waxa la yidhaahdo negotiation macnaha dee ninkii in lala gorgorto inuu la yidhahdo inuu soo dhiibo marka ogolaado wuxuu yidhi kaalaya qamre ilaago kaalaya kuxuban waa arrintaas waa wada dhammaynaynaa kaalaya si cayaar buu haddana bistooladii ninkii booliiska uu dilay si badan u dilay buu intuu soo qaaday buu macnaha dee dadkii tusay marka sidaa waxaa macnaha khamrida aan sheegaya bistooladan weeye waxaa kale tawasiiraya marka ninka nin arxan daran buu dad badan baa liibana moogteen dad badan yaan dhihin soo dad waxaa jiray u arkaya ninkaas inuu ahaa nin haliyey ah oo boolisku ay ku xadgudbeen oo waas moogtay inuu ahaa waxaa liibana sideedan badan waxaan maqlay nin waxaa jira Australia loo yaqaano famous Ned Kelly wuxuu Irish ahaa ilaa 20 jir iyo 20 meelahaas uu ahaa boolis buu dembi buu galay markaasuu cararay markaasay booliskii ka daba tageen nin boolisku dilay marka dama haddana meel ku gabanay isaga ku xiso oo leeyahay Ned Kelly gang la dhaho yani lagu tagay sawir baa jiro soo qafil intuu gashay buros xidhay xabada ka haya markii dambe si lagu dilo lagu dhaawacay waa la dhaawacay isagoo nool baa inuu soo qabtay oo miyaa xabis qorta lagu dilaan ma yaaba illa jiiba maray marka ninkaasi liibano bari waxa jirta aan maqlay amninkan khaasatan Victoria dad badan baa waxay kuna qaybsan yihiin ninkaas qolyo dadkii booliska iyo nidaamka iyo ummalay dadkii Ingiriiska xaga keenay yihiin inuu ahaa criminal gang ah mujrim ah dadkiisii wixii la halmaanan dad aad inay yihiin kuwana waxay u arkaan inuu ahaa hero inuu ahaa xorriyadda Australia iyo inay dadka booliska meel la mariyana inuu sabab u ahaa waxaa lagu yiri amninka liibano gobolka Victoria meelihii weli dareenkii baa ka jira haddaad tagto dhulkii ay dadkii deganaayeen Ned Kelly kooxdiisu amninkan dad wixii kale aaminsan oo isaga taageersan oo arkin haliyay inaad ku arkin meelaha kale waxaa marka arrintan hadda u keenay waxay tahay ninkan hadda meesha uu ku tilmaamay Eastern Victoria miyay yahay waa dhinacii waxaa la Ned Kelly iyo dadkiisa ay joogaan inuu qoladaa ka soo jeedo amaba inuu dee waal uu og yahay inuu hadduu meelaha kala tago inuusan ku badbaadaynin oo lagu fartay qolyaha tuugi la dhihi qoladansi uu hadduu ku dhaho Ned Kelly baan kala ahayo boolis baan la dagaalamaya inay kuwa badan oo haddayna xataa sheegin iskaga jeesanaya inay jiraan kulli ogaabay u badan tahay inuusan meesha ka soo jeedo marayn maayo marka arrintaana waa arrinyadan xiiso la soo jirta weeye dibana haddaan u sii soconno waxa ka dhacaya waddanka gudihiisa xaggan waxaan la soconnay diban aad baryahan u socda dad badan ay maqlayaan guri la'aanta ayaa Australia baryahan dambe aad warku u haya guryihii oo yaraaday guryihii oo qaari noqday guryaha dowladda khaasatan oo ayagana aad tirada u yaraaday oo la dhaho dowladdii Australia gobollada iyo federaalkuba lacagaha ay ku bixinayaan in guryo cusub la dhiso 30 sano u dambeysay aad iyo aad u yaraaday waliba khaasatan liibana gobolka Victoria ayaa waxaa la dhahaa gobollada ugu hooseeya inta guri ay dhiseen 20 sano 30 sano u dambeysay dowladda dhexe federaalkuna xoog bay baryaha caaro u saarayeen guryihi badiso gobolka Victoria sidoo kale u sameeyay arrinta marka waxaan isku sheegaa maxay tahay guryihii liibano ugu horeeyay dhaadheer waxaan ognahay magaaladan Melbourne inay ku yaalaan 40 iyo guri inkastoo ay laba hadda baxeen 42 markay taagan dhahno 42 guri oo dhaadheer oo magaalada centerkeeda aan ka fogeyn oo ku hareeraysan dowladda Melbourne kaliya oo dowladda gobolka ay tiri in la rabo in la hagaajiyo hagaajin lagu sameeyo oo campaign badan iyo dagaal amniga uu socdo labadii guri ee ugu horeysay 44 meelaha 3 sano ka hor ayaa la sheegay horta soo gabagabooday stage dhowr ay soo mareen marka hore waxay gaareen dadkii naga karo oo dhamaystiray waxaa la gaaray in la design-keeda yeesay tahay in guryuhu maxay yihiin in mise qol weeye oo dadka laga tashaday oo anigu xataa naftooda liibano aan qayb ka ahaa
oo runtii aan aad u aaminsanahay dowladdu waxyaabo badan inay naga dhageysatay waxaana ka mid ah dadka la wadaago meesha guryaha la burburinaya waxay ahaayeen 96 guri laba guri bay ahaayeen markii la isku daro waxay ahaayeen 96 guri 96 guri mise waa 16 dabaq liibaanow 16 dabaq oo midkiiba ay degan yihiin 6 guri ku yaalan dabaqiiba waa imis saabta korka ficiliye waa waqti hore ahayd iyo aragtay ahayd marka waxaa leedahay gaarahaas kulligood waxa weeye dib habeen baa lagu wada sameynaya laakiin labada ugu horeyso maadaama oo la wado macnaha hadda hooshii gacanta ku socdo tirada intii ku taalay mooyaane in ka badan dheeraad baa lagu sameynaya marka 6 haddaan ku dhufto 16 midkiiba 96 midkiiba 96 buu ahaa dabaqii laakaba marka 96 haddii lagu dhufto labo waxay noqonayaan 192 guri ayaa meesha laga burburiyey dowladdu marka waxay ballan qaaday in ay dhisayso 248 guri inay dhisayso marka arrintaasni runtii waxay ahayd aad iyo positive ah guriyihii inay aad xoog loo kordhiyey oo lagu daray 50 guri oo kale lagu daray waxaa kaloo iyadana muhiim ahayd oo iyadana positive ahayd oo lagu sameeyey guriga ugu badan guryahaasi waxay ka koobnaayeen 1 qol 2 qol iyo 3 qol 3 qol baa ugu badnaa walidaaba dad badan oo waliba Soomaaliya dadkeenu u badan yihiin ka kooban yaynan meesha deganaan karin way sugayeen in meelo kale guri looga helo hadalla aan la hadalnay oo nidhi dad waxaa jira guryo fara badan sugayeen muddo dheer oo hadda laga raray oo raba inay ku soo noqdaan dadkiina haddii la dhaho maya kuma soo noqon kartaan keli uun qolal idinla ma joogto arrintaas sax ma aho waxay dowladdu naga ballan qaaday iyadoo markii inay lagu darayo 4 qol iyo 5 qol 4 qol waan u maleynaynay inayna adkayn runtii in 5 qol lagu darayo aad iyo aad bay nooga farxisay talaabo weyn dowladdu qaaday marka guryihii noocaas la sameeyey ayaa hadda markii dadkii laga raray waa laga raray consultationka dadkii lala tashado stageka saddexaad in la dumiyo guriga hadda duminta waa la dhamaystiray hadda muddo bil laga joogo waxaa la dhamaystiray guriga dhulka la dhigay hadda waxaa bilaabanaysa marka dowladda waxaa safka soo socota meel wara aan ka maqlay aad weli looga ogo laakiin waa exclusive weeye liibano war soo gaadhay sabtidan saaca laga qaadahayo dhagax dhigidii guryihii dhisidoodii labada dabaq ahaa oo 248 guri ah oo ka kooban ilaa 5 qol guryaha ka kooban yihiin ayaa dhagax dhigidooda la samaynayaa sidii marka hore la sheegay waxaa weeye 2028 inay diyaar noqon doonaan in lagu gudbo waxaa kaloo guryaha khaas ku yihiin oo guryahan kaleete la samayn doono in ka bedeleen dhammaan 248 guri waa guryo dowladeed ayaan waxay dowladdu aad u samaynayeen inay guryo community lagu daro oo mix wax community baraayada oo dowladdu ay lahayd oo guryo dowladeed ku oli jireen ayaa la burburin kaas barna waxaa laga dhigayaa community barna waxaa laga dhigay private barna waxaa laga dhigay dowladdu waxay leedahay dhammaan labadaa guri iyo 248 guryo dowlad bay noqonayaan waxaa kaloo iyadana laygu baraarujiyay meel dhowta liibanow in ay noqon hayaan gurigaasi Australia oo dhan dabaq dhammaantii guri dowladeed ah oo kontonkii sare lasoo dhaafay la dhiso konton sare lasoo dhaafay guri dabaq aha sababtoo guryo 16 dabaqa baa laga burburiyey waxaana laga dhisayaa 17 ilaa 18 midna waa 18 maraya midna waa 18 dabaq marka waa guriyihii ugu horreeyey oo dhammaantood dowladad ahaa oo kontonkii sare lasoo dhaafay marka qaarkii la yaqaanay oo housing commission lagu yaqaanay waxaa lagu soo yaqaanay hadda wixii ka horreeyay oo soo bilaabatay 60 sano waa guryahan hadda aan sheegaynay la burburinaya dhaadheer weeye oo aadka hadda dad badan marka ay qoorxin yihiin ee condition aan lahayn old fashion ah oo la rabo in laga takhaluso marka hadda kuwa markii la dhisay 60 sano ka hor guryo dheer oo dowladeed inta kadib lama dhisay laakiin kuwan waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyay oo guryo dhaadheer
oo dabaq ah oo dowladdu ay leedahay maanta boqolkiiba qaabka loo dhisay markasoo noqonaya design-ka maya aad iyo aad iyo aad bay uga bedelan yihiin sidiina loo tusay design-ka anigu waan arkay kow waxay horta leeyihiin afartii dabaqba meel waxay lahaanayaan u dhaxaysa oo banaanka loo bixi oo dadka ka dhaxaysa communal area afartii dabaqba marka dabaqa u horeysa markii la dhaafo meel buran banaanaha oo intaad baxdo liftiga aan ahayn oo aad istaagayso oo maarta furan yeelanaya waxaa kaloo ay leeyihiin guryaha hoostooda waxaa laga furi doonaa meelo dadku ay ama maqaaxi noqoto ama dukaan noqoto waxyaalo dadka loogu talagalay ayaa hoosta ku dhigi doona waa guryo air condition leh waa guryo waxay noqonayaan energy waxaa la 5 star energy macnaheedu waxaa weeye guryahan hadda waxaa weeye way aad kuwa qaarkood doleel badan bay leeyihiin marka qabowgaa si sahlan usoo geli ama way xiran yihiin oo waa dhagax oo mar alla markuu kuleyl yimaado aad bay u kululaanayaan aad iyo aad bay u kululaanayaan guryahan marka wuxuu noqonayaa guryo insulation lagu sameeyey oo aan si sahlan u kululaanaynin si sahlan u qabownaynin oo marka haddaad u baahato aadan u baahnaynba air condition fara badan iyo ama heater fara badan aad u baahnayn haddaad bulshadaas fiican u xirato adugu waa wax loogu talagalay oo maanta 5 star insulation marka loo xiistimaayo daarihii hore sida rajaynayno sidan la ballan qaadahayo iyo sida wixii markii beber laga dhigo iyo qoraal lahaa iyo realitiga markii la tago markaasay kala bedelanayaan sidii hore hadda baa moogtay markastaba sidii hore iska jecel dad baa hadda amiga nuudi kambeenya socda dhahayo guryahan in la bartagtagadayo oo la difaaco laakiin markii loo fiiriyo waxaan ku dhahaa dadkan markay la weydiiyo maxaad garanaysaan waxay leeyihiin waa guryo historic waa guryo adaaga waa guryo kale laakiinse waxay iloobayaan dadka degan maxaa ayaga danta ugu jirta ma dhahayaan haddaad tiraahdo gurigan waa historic historinimadiisaan rabaa in loo hayo hadda way adigu kaali deg adigu kaali dego historinimadiisa ku hay oo u dulqaaday dhibkiisi iyo qaharkiisiyo aana fiirsanne oon dhahan gurigii 70 sano ka hor la dhisay weeye oo aad tiraahdo way jiraan guryo waxaa jira saa loo hayo oo lagu hayo dowladda ay diido oo tiraahdo waa historic weeye way qoorxiinahay qoortada dhibaatooyinka ka jirto hadda inay dumaan baa laga yaabaa hadda ayaan taariikhdii baa lagu xusuusanayaa marka waxaa dhaca give up baa la sameeyaa waxbaa give up lagu samaynayaa marka dad baa waxay rabaan inay jiraan dadka dhibkiisu uu gaarayaan in iyaga ayna noqonin oo dad kaleeta ay noqdaan inay dadka waxaa layidhi itusi taabsiye laakiin haddii arkaan guryahan waxaa laga yaabaa kuwa hadda oo oldiga ah inay dhahaan durba dadkii macnaha waa ku qanacsan wayba dhiibataa aniga shakiga waa jira waan aragnayba guryo hadda facility fiican oo lagu noolaan karo carruurtu liibana wayba dhacdayba oo guryo hadda la dhisay dadku marka ugu horreysa waxooga way ka yareyshataan markaas waqti meel ugu cusub yahay waxa kii hore uu kaga liita qarkiisa meelaha hadda Soomaalidu weliba familiyada laaja weeye waxay jecel yihiin hal qowl inay bas qoralka marka biyahan dambe waxay xoog la sameeyaan markii is guriga meesha midin roobka la fariisto ee dhaxdhaxaadka iyo guryaha qaarkood aad loo weyneeyaa oo dadku inay soo baxaan ciyaalka ku ciyaaraan oo ay doonaan ay cayrsadaan laakiin qoralka qoliga qofka waa yari waxa laga yaabaa hal saarin inta geliyo wax kale in la gelin karin marka Soomaalidu arrinta marka way ma jeclo oo way neceb yihiin laakiin runtii haddana markii loo fiiriyo dadka design-kan sameeyay waxyaalo badan waxaa jirta oo ciyaalka koritaankooda iyo caafimaadkooda u fiican oo xooga saarayaan meelaha bariyahan hadda la ogyahay waxaa weeye internet iyo computer iyo game baa jira marka dammo ilmaha qolkooda laga soo saaro oo meel la keeno haddayna banaanka u baxaynin meel ay dadkii iyaga isdhex kacaan oo waalidkoodii ay isdhex kacaan oo ciyaalka ay ku ciyaaraan oo iyaga xataa ilmaha hadduu computer isticmaalayo haddii kuwo kale la joogaan waxba dhaanaa laakiinse middan waa ilma kastaba qolkiisa geli oo ama laptop la fadhiyo ama tablet la fadhiyo runtii caafimaad ma ah midda kale balaayo kastaana u soo geli oo waxba lala arkaynin lala ogaanaynin oo ilmihiina xataa uu kalsooni isagana diyaari ka wardoon ruux baa laga yaabaa mujrim oo way jiraan dad waaweyn oo mujrimiin oo ciyaalka markay arkaan oo soo raadin oo dhihaa inaan ku hadlaan rabaa markaasoo ilmihiina ciyaalka waxna curiosity weeye waxay doonayaan inay ka wardoonaan umana arko gurigii hooyadiiba jooga uma arko dhibka soo gaaraya markaasuu ka wardoon buu dhihi markaasaa meesha lagu qabsani marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaadho meel uusan arrinta gacantiisa ka baxayso uusan waalidkeena u sheegi karin u sheegin uusan garanaynin laakiin hadduu fadhiyo meesha fadhiga ahaa way adag tahay inuu mataqaana ay socoto oo waxay socoto oo halkaa la gaadho marka waxaan uga jeeda waxaa weeye dad baa runtii u fadhiisteen ciyaalka noloshooda familiga xaaladda jirta
waxaasoo intay ka baaraan degeen ayay dhaheen sidan baa ugu fiican mana lihin inay mar kastaba xaqiiqada iyo sida saxda helahayaane waxaa loo baahaya dadku ayaguna intay fiiriyaan inay wixii objection ama su-aal ay ka qabaan inay sideeda u sheegaan ay dhahaan waan fahamsannahay waxaan isaayo ku fiican yahay laakiinse meeshan uu ku xun yahay nala arka marka hadda dadka khubarada baa loo jeedaa wararrintii aad sidan u dhahdeen dadkii sidan iyo sidan bay leeyihiin ama intay arkaan bay dhaheen weli waxaan u aragnaa inaan saxsannahay oo sidan waan ku xisaabtannay sidana ugu fiican ama waxaa laga dhahaa maya arrintaa wallahi saa markii umaana fiirinine waxbaan ka yara bedelaynaa oo waxbaan sida ka dhigaynaa marka taarta waa muhiim in xisaabta lagu hayo oo lagu darsado loo waxayo libaanow haddaan usii gudubno waxyaalaha kale arrin waxaan rabnaa libaanow inaan u gudubno xagga soomaalida libaanow waxaan maqlaynay beryahan in inagoo asyana maqlaa soomaaliya waliba victoria arrimo ka jirtay baa jiray oo dad soomaali oo waxyaalo lagu qabtay famildekeerka markii aad u jirtay hadda beryahan india esta aad u socota oo iyadana waxyaalaha jira jiraba dad baa xataa la xiray maalin waxay war ay soo gaadhay dad baaba xiranba xabis ku jiraba arrimaha famildekeerka iyo india esta waxaasoo kale ah laakiin si cad oo mataqaanaa dariishad diiradda naloo saaray sida minnesota inay arrintu yara jirto oo ay ku badan tahay soomaalida iyo inuu ninkan guduudan oranjiga donald trump uu untahay inuu madaxweynaha maraykanka hadda inuu diiraddan saaray anugu hadda ilaahay baa lehe ma kala garan karo laakiinse waxaase jirta maalin dhoweyto oo la ii soo diray oon arkay 15 ilaa haddii lagu daro mid laleeyahay wuu maqan yahay 16 qof oo aad garanayso markaad fiirso inay wada soomaali yihiin muuqaalkooda iyo magacoodaba ayaa la aresti gareeyey oo arrinta iyada lagu haya oo ilaa lacag gaaraysa 90 milyan milyan oo dollar lagu haystaa arrintaa marka had maalin baa ruux ii soo diray waana weli waa socotaa waxaan u malaynaya waa la aresti gareeyey halkaa ruuxna ay sheegayana waa raadinaya FBI joogo noo soo dirle ma la xirin baan u malanaya weli dadka investigation waa waxaan arrinta liibaan u keenayaa maalin dhaweyto ayaa liibaan arrin aad iyo aad iga yaabisay oon rajaynayo inaan dadka wax dheeraada la wadaago wixii kale jira ayaa isoo martay liibaanow ruux soomaali ahaa weliba islaam waayeen ayaa wara waxaa isoo gaaray in gurigeedii ay joogtay oo dadkeedii ehelka weliba ruux ehelkeeda ah ay la deganeen ay ku ilaalinayeen yaa muddo hadda laga joogo 43 maalmood ka hor laga qaaday maya waa meelban bay hadda ka dhacday meelban bay ka dhacday 42 maalmood ka hor meel muddo laga joogo ayaa islaantaasi waayeelka ah laga qaaday gurigeedii iyo meeshii ay joogtay arrin waxayna ku jirtay arrintan NDIS-ka dadkii adeega siinayay ee kambanigii lagu ogaa inay adeega siiyaan dadkaan looguma talagelin meel ka qaadanay meel geeyaan shaqada taas waxyaalaha xoogga la saaray NDIS waxaa weeye National Disability Insurance Scheme waa program taariikhi ah naag la dhaho ra'iisul wasaare mar ahayd oo Julia Gillard la dhaho ayay hirgelisay waxay dadka curyaanimadu waxay soo noqotee wax aan la aragoo la maqal oo adeega iyo u fasaxday oo millions lacag billions ku baxayso oo haddana lacagteeda aad u badatay la rabo in la xakameeyo la rabo hase ahaatee arrintii marka saas ahayd waxyaalaha ay xooga aas-aaska waxaa ka mid ahaa in awood la siiyo dadka curyaanimada awood la siiyo waxaa lagu celceliyaa ruuxu waxa uu rabo in loo sameeyo nood waxaad u malaynaysa inuu baahan yahay aad weliba carabka lagu celiyaa ma oho waxa uu u baahan yahay ruuxu isagu rabo ma dhihi kartid adugu curyaan baa tahayoo anigaa wax kuu fiican oo waxaa kuu sameyn lagaa yeeli maayo haddii ay arrintu halkaa gaadho oo kasoo qad ruuxu naftiisa khatar ku yahay jirto taasi boroses kaloo la marayaa jiro u baahan yahay sida dadka maskaxda ka xanuunsan oo kale ama u baahan daawo in dhakhtar u qoray oo daawadii haddayna isticmaalin ay naftooda ka targelanayaan dadka ka targelanayaan arrin boroses la maraa jiro dhakhaatiirta iyo khubarada intay fiiriyaan yaa loo sheegi markaasay ka baaraandegi markaas waxay dhihi doonta wixii kaalada daawadii wixii qaado hadduu diidana waxaa laga yaabaa inay booliska codsadaan inay dhahaan naga caawiya marka ruuxa booliska intuu u yimaado la qabto xoog lagu geeyo meesha daawadiisi la siiyo markaa deedna la fasaxo laakiinse waxaan neba eba la ogolayn si loo yeelin curyaan baa tahay wuxuu dana curyaan ha noqotay anaa og waxa kuu fiican waxaasaan kuu samaynayaa ee qaado ma jiro lagama yeeli maayo
waxaa weeye ruuxu inuu waxa uu isagu rabo in loo sameeyo arrinta marka aniga shooga ku rido waxay nidaamay inay islaantaasi gurigeedii iyo dadkii ehelkeeda ahaa iyo danihii laga qaaday isbuuc kadib haddana waxa la dhaho internation oo dhar lasoo qaaday dadkii iyada dad ugu dhowaa loo soo qaaday oo la yidhi khatar bay ku yihiin markaasaa 41 maalmood guri kale oon gurigeedii ahayn aan ahayna gurigii dadka iyada ugu dhowaa ayaa lagu hayay wax kale oo lagu tilmaami karo maba jiraba aakhirkiina markii dad u tageen oo maamadii meeshii guriga laga soo saaray waxay si cad sida war igu soo gaaray u tiri xoog baa la igu hayay intaasoo qoor baana idhi dadkii laigu celiyo hala iga saara meeshan waana la iga diiday marka iyada ay ka soo dhacaysana waxaa la yidhi markii laga soo qaadahayay boolis baa meeshii ka soo fasaxay si kale lagu socday marka arrintaa waxaan u sheegayaa soomaaliyeed sida hadda minnesota ka socda aan dhahayna waana la taagadarinaya waana la waxaynaya arrintaas waxay ahayd waxa la dhaho feeding the kids program loogu talagalay ciyaalka gaajaysan inay kala dhexgalay dadkan duubaya aan dhehe ma Soomaaliba ma Soomaali waa Soomaali way wax ajnabi kuma jiro Soomaali waa Soomaali way Soomaali ka abduubay Soomaali ka abduubay way ha oo ruux vulnerable baa dhahaa waa yeelaha oo curyaanimo dabcan India asqofu ma qaadan hayo mana ku jiray in curyaanimaduna waxay u qaybsataa intaasoo wax waxaa la dhahaa meelaha ka mid ah calaamadda ay India isticmaasho waxaa ka mid ah not all disabilities are visible curyaannimadu dhammaantood ma muuqato bar baa xagga maskaxda aha bar baa xagga fisikaalka ah ruux baa hadda laga yaabaa inay 4 lugooda ka go'an yihiin laakiin markay maskax iyo caqli noqoto kaa caqli oo wax walba sheegi marka qofkan suu ku soo qofkan kale uu waxay ahayd inuu adeeg uu samaynhayo adeega asaga ee NDIS-ta ayuu u samaynayay oo arrin u samaynayay xaddiisi aniga ila muuqato xaddii buu dhaafay haddaan hadda adiga aad wax ama hala ii soo qaadiro ama anigu aan ku darsado aan ku dhaho waxa iyo waxa ii qabo haddaad ku darsato gurigayga haddaan aan ku dhaho wax ii nadiif ama cunto ii kari haddaan ku dhaho haddaad ku darsato inaad gurigii fuyiisa hayso oo aad igu xidhi إلا ممكن معناه مثلا ما لي هذا ساعة ما كان هذا بس عن هذا يا تصار أصلا قادم يا وحي لغو إثمي يا ذو حط قصة وحكرة أو ليش بتشيل ها ولغو نفسعين هذا نويدين وحقوسي من سنة أوي روحها ودي صدق سقاط هذا وبهية حلقة مرمانها إن ضدك أوجو أما ضدك لما مدح بنان حتى هذا أمة لا ينسى كأوجو إنس ودا لهين أما وحكة توجيه ضدك له ومدح بنان إن الخارج أو ترى هذا أنت إلى أنت لا شفته وحنا أركان روح عن ساعة أوف عن الروح أوجو وإنس روح أوجو أسرين إنه ضدك مدح بنانه أما هالنقطة الصومالية ده كلاته أما هالنقطة ضدك أجنبي جدو أما هي هذا الجولة أجنبي هالنقطة إن الله شيء الله ده أرنتان يعني صميني سيدنا أنا أصمينينا نلا أركان هذا هذا independent روح وحي أنت marka waxaan ugu ururaya liibaan wax ma noo sheegi kartaa maxaa ku soo dhamaanaysaa arrintii sida la ii sheegay maamadii meeshii rescue baa lagaga sameeyey booliska loo yeeray booliska yimid ayadii baa loo qabtay turjubaan Soomaali ah la yiri yaad rabtaa xageed rabtaa inaad joogto ma gurigan aad joogtay meesha lagu hayay baad rabtaa inaad sii joogto mise dadka ku yimid raacina raaca saxaytay dadka in yimid baa rabaa inaad raacdo taasi si walba oo hadlay oo ku iri iga celiya meeshaydii iyo gurigayga iyo dadkaygii way iga diideen markaas sidii arrintii ay ku waxay waxyaalihi kalena weli waa socdaa oo waa la soo waxaan sad u sheegaya waxay tahay Soomaaliya haddaan u nidhaahno markii sooshka nagu fiyo aanu complain bilowno oo sheegasho bilowno maxaa lagu ifin aan nidhaahno asaa ruuxu markaad aragto in khalad sameynaya aan la hadlin markaad aragto waxaas oo kale iyo wax u dhow waan hubaa kuwa badan oo saas oo kale in ay jiraan oo hadda loo sheegaynin sababtoo ah arrintan hadda India ista community-geena family day care ugu badnaa ayay aad iyo aad ugu badan jira waxyaalaha aan maqlo anu kuma jira arrintan nin ku jira mana yungurna igama gelin sababtoo waxaan arkay inay tahay arrintu arrin dhib badan inay tahay dad curyaan ah oo disability qaba oo u baahan in la caawiyo ayaa adiga waajibkooda ku fuulaya arrin sahlan marka ma arrin si fiican loo soo dhici karo ma marka laakiin si waxyaalaha aan ku maqlibaan waxa ka mid ah waxaa la kala xaday waxaa la kala qaatay kuwa wax lagu sameeyey
kuwa lacagtiisii wixiisii adeegiisii wax kalada loo isticmaalay intaas oo kun baa lagu dhameeyey muddo bilood intaasoo kala lacagaa ruux dadkaasna intaan ka faacsan loo qoonday waxaa la dhihi 12 bilood baa lacagtan lagu qoondeeyey barka qaarkoodna waa la magacaabay waxaa la dhihi waxaaba lagu samayn karaa waxaasa lagu samayn karaa markaas kuwa qaarkood waxaa leeyahay lacagtii dhannayd ee loogu talagalay 12 bilood ruuxan adeeg loogu fuliyo waxaa laga yaabaa inay 6 bilood 7 bilood inay ku dhamaato ruuxi marka uu soo istaagay ruuxii shalayto intaas adeega loo qabanay oo laga badbadinayay yaa laga yaabaa inuu 5 bilood u dambeysay wax banaanka soo istaagay wax u imaanaya jirin waxyaalo oo kuwa qaarkood lacaga lagu kharash garaynayo waxyaalo aan munaasab ahayn oo marka adigu wax aad u badan iyo haddana waxyaalo la yaab kale wax kan xarina yaa aan aad u maqlo waxa kamid ah ugu soo dhawaado waxa la kala waxa loo tagi ku kala saxiixi ku kala ka daba tagi ka saxiixan kuba shaqo u qaban waxun adigu aad yaabisay yaqyaqsi ah yaa ka socda marka Soomaaliyay markii ceebteenu ay soo baxdo oo diirashada diiradda macalisa laga saaro yalla kumbal garanayaan in anaga naloo jeedaa yaa dhihi ruuxa khaldan waa in si loo sheego haddana khaasatan maba dhahayo dadka la ajnabi ah lagu sameeyo laakiin haddana waxba ka sii daran yahay ruux Soomaali ah oo haddana waayeel ah oo haddana haween ah in waxaas oo lagu sameeyo wax runtii aad iyo aad u farxo weeye gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay diimaanow inta aan ka kulmayna dhageystayaal هذا مثل أي مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.